loo ogaado waxyaabaha ay u baahan yihiin dadweynaha gobolka Banaadir misana baahiyahooda looga jawaabo waxa uu gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamed Cumar Filish dhammaan degmooyinka gobolka ka bilaabay barnaamijka bulsho bile kaas oo lagu dhageysanayo baahiyaha degmada ka jira iyo su'aalaha ay rabaan shacabka inay weydiiyaan maamulkooda waxaana toddobaadkan lagu qabtay degmada Howlwadaag ee gobolka Banaadir degmada Howlwadaag way balaaran tahay xaafadda ee xawltaaka la yiraahdo ee degmada Howlwadaag waxaa ku yaala suuqa bakaaraha Kalabar haddana dhibaatada ugu weyn ee haysataa waxay ka mid tahay xagga wadooyinka wadada ugu muhiimsan ee suuqa bakaaraha halbowlaha oo ah oo yiraahdo wadada ama Howlwadaag ama xareer la yiraahdo wadadaasi waa go'an tahay waxayna halbowlu u tahay suuqa bakaaraha muddo 30 sano ah ilaa ay hadeer wax laga qabtay oo muuqda ma jiro maamulka degmada Howlwadaag waa maamulka kaliya ee dadkiisa la falgalay xilliyada roobka iyo dhibaatooyinka jiraan nala taagan habeenkii dadka nala bixiya biyahaas rafaadka iyo dhibaatada ay ku hayaan dadka meesha degan waa waxna aan soo koobi karin waxayna u baahan tahay xal in loo helo si ay u noqoto guul aan soo laabanin oo aad micnaha intaad xilka hayso xilkan waa meerto waxaan kaa rabnaa insha allahu tacaala inaad micnaha qayb qaadato intii aad joogto xilkan inaad micnaha insha allahu tacaala aad naga maareyso dhibaatadaas naga haysato jidkaas wadada xareer madasha bulsho bile waxaa goobjoog ka ah ku-xigeenada maamulka maaliyadda iyo howlaha guud iyo gudoomiyaha degmada Howlwadaag ee gobolka Banaadir Mustafa Cali Khayrre gudoomiyaha degmada Howlwadaag ayaa sheegay in maamulkiisa oo kaashanaya shacabka degmada inay ku guuleysteen in Howlwadaag ay horumar sameyso taasina ay ku timid wada shaqayn bulsho iyo maamul gudoomiye sida dadka meesha hadda ka hadlay ee hore u sheegeen dad kalena ay dhiman yihiin insha Allah aan rajeynayno inaan ka hadalno Howlwadaag ma qabto dhibaato marka loo fiiriyo amni ahaan iyo iska hormaadi ama maleeshiyad ama barbalin ka ma qabto laakiin barbalinadu waxay ku xiran tahay oo kaliya maxaa la yiraahdaa horumarka ka jira guud ahaan magaalada Muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya inay la jaan qaado runtii haddana waxyaalo badan ay qabteen mudane gudoomiye sida hore loo sheegaba intii ay joogtay howlihii aadna soo fartay oo aadna soo amartay annagoo qaadanayno taladaada iyo tusaaleyntaada aan qaadanayno waxaa wax badan laga qabtay guud ahaan degmada Howlwadaag in badan oo kalena way noo dhiman yihiin oo waxaan u baahannahay idinka garabkiinaan u baahannahay haddaadan idinka garab iyo aadan naga siinin runtii ma qaban karayno sida hore loo sheegaba suuqii weynaa ee bakaaraha wadooyinkiisii waa ay wada furan yihiin inta badan waxaana saaran dhagaxa ee Soomaalida u taqaano interloga sidoo kale wada kale ayadana oo maxaa yiraahdaa degmada gadaasheeda marta ayadana waxaa jirta hadda uu ku socdo degmada bilooyin ka hor waxay ahayd runtii meel burbursan uu cadowga naafiyay laakiin nasiib wanaag maanta waxaan fadhinaa meel qurux badan waxaan rajeynayaa insha Allah meeshaan iyo meel ka sii badan ka sii weyn oo qurux badan inaan soo fadhiisano su'aalaha ay dadweynaha mas'uuliyiinta weydiinayeen waxaa ka mid ah dhisidda wadooyinka degmada gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee gobolka Banaadir Cumar Cali Cabdi ayaa sheegay in reer Howlwadaag ay yihiin dad garab taagan maamulkooda taas beddelkeedana ay jiraan caqabado hor istaagayo horumarka kaas oo tusaale u soo qaatay in wadooyinka loo dhisay dadka degan Howlwadaag ayaan ilaalsan nadaafadooda dadka reer Howlwadaag waxa loo baahan yahay waxaan daafurnay oo dhowr jeer aan sameeyno waxyaabo la yiraahdo isku tashi waxa waaye in siwijkan anaga aan xalisano laamiyadan anaga aan xalisano bal iska dhaaf kuwa aan idin xalin lahayn dhibaatadan haysta waxa kamid ah kuwii aan xalinay waxa ka taagantiin dalado isgoyska bakaaraha oo 30 sano xirnaa oo aan la mari karin oo aan intaan furnay nadaafadinay laami marsiinay biyo maris u sameynay waxa la sameeyay in
suuqa laga dhigo oo daladaha la geliyo oo daladihii la surto oo biyihii fariistaan marka haddoo jajabana canshuuraan halka qaadaha leeyihiin 30 sano wixii aan la eedeen haddaan ku dadaalnana waa haysan la'dihiin marka wax walbo leedin qabto waxa loo baahan yahay inaa haysatiin aad ku fara adeegtiin insha Allah sidoo kale gobolka Banaadir waa gobolkiina waxaan diyaar u nahay inaan idin khidmadeeno idin adeegno adinkana aad u garab siisaan insha Allah أحمد حسن إيمان وحكيان كمامولك إيمالية قبل كبنادر أيها شاعة كقاضي إن مامولك قبل كبنادر وكوكو ليستي مامولد وحبرشاد قبلك لو نباهن يحي إن والد كعرورته ذي أسو دران قوبها وحبرشاد runtii in dadka loo dhawaado waa geesinimo oo maamulkan guddoomiyuhu hormuudka ka yahay qaatay shacabku inka dadka soo raadin jiray hadda anaga raadinayna yaa cabasho qabaan joognaa marka waa geesinimadaasna inaad naga aragtiinna waa rabnay keligiin maahan degmooyin badanna la soo gaaray hulwadaag waa nimid hadda waa joognaa cabashadiinna waa dhegaysanay inta yartaa waa wax la xalin doono qorshahana ku jira haddii alla idmo sidii hore loo sheegay dhowr meelood umaad ka cabateen oo ah warta guddoomiyihii halkaan iga horreeyey howlaha gudaha sheegay qorshaday ku jirtaa mar dambe kama soo caban doontiin haddii alla idmo dhanka waxbarashada adinkeedin saaranta iskuulle free oo lacag la'aan laydin keenay ciyaalkiina soo dirtiin adinkaa laydinka rabaa iskuulka dhigtaan shaqadaas waa shaqadiinni adinkaan idinka sugaynaa haddii alla idmo su-aalaha ugu badan ee dadka ay weydiinayeen guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish waxay ahaayeen waxbarashada horumarka degmada iyo shaqo la'aanta marka waxbarashada waxaan doonaynaa innaga waxbarashadu inay noqoto mid dhammaan bulshada gobolka Banaadir ay ka faa'iideysato meesha aan u socono waxay tahay cunuga gobolka Banaadir ku nool inuu iskuulka aado sigoon isaga iyo waalidkiisa oo aan ka walwalayn lacagtii oo iskuulka fiiga iskuulka oo aan gaarsiino inuu lacag la'aan wax ku dhigto كركوب للسمي وسارد waxbarashadu ay sameysay waxa lagu ogaaday gobolka Banaadir ciyaalka da'da waxbarashada gaaray ee iskuul aadayo inay yihiin boqolkiiba 12 boqolkiiba 12 hadii iskuul aado meeqa guriga joogta marka 88 marka bulsho boqolkiiba 88 aysan waxna qorin waxna akhrin ما الله هرومرين كرا لو جاهلة لما هرومرين كرو سيدا درتيد سأرن تاس الله قبحه وحن الدرسي سبب تاس وح أي تاي أو عرورتا بقولك بس ديت يقولوا جوجان سكول الواد وحسب بحذي ريالك وضير سكول ما أودو إنه عيال كودن سكول جاي العكبح شو إيرو بيرو بيلك ولد لا دعايا waxbarashada ma awood markaan soo ogaanay xogtaas maxaan qaadanaa marka talaaba aan qaaday iyo sidaan u fikirnay maxay tahay waxaan u fikirnay inaan waxbarashada nidaamka farahan naga soo saara annaga la wareegayno ujeedadu maxay tahay ujeedadu waxay tahay inaan iskuul helno helno macallimiin iyo maamul waxbarasho oo tayo leh oo ciyaalkii waxbara isla markaas ciyaalkoo dhan la yiraahdo lacag leeyahay kama rabee jamaada iskuul gurigan jooga waxna ma barto meeshaas inay ka baxdo taas loo la jeedaa arrimaha waxbarashada marka halkaas ay marayaan oo duruufta waxbarasho aad hadda noo sheegteen sidaas aan uga warqabnaa waxaanu sheegay in dhammaan baahiyaha jira la xalin doono marka waxbarashada waxaan doonaynaa innaga waxbarashadu inay noqoto mid dhammaan bulshada gobolka Banaadir ay ka faa'iideysato meesha aan u socono waxay tahay cunuga gobolka Banaadir ku nool inuu iskuulka aado sigoon isaga iyo waalidkiisa oo aan ka walwalayn lacagtii oo iskuulka fiiga iskuulka oo aan gaarsiino inuu lacag la'aan wax ku dhigto
تراكوب للسمي ووزارة waxbarashadu ay samaysay waxa lagu ogaaday gobolka Banaadir ciyaalka da'da waxbarashada gaaray ee iskuul aadayo inay yihiin boqolkiiba 12 boqolkiiba 12 hadii iskuul aado meeqa guriga joogta marka 88 marka bulsho boqolkiiba 88 aysan waxna qorin waxna akhrin ma la horumarin karaa oo jaahila lama horumarin karo sidaa darteed si arintaas looga baxo waxa la darsay sababtaas waxa ay tahay oo carruurta boqolkiiba 88 ay guriga u joogaan iskuul ay dhawaad waxa soo baxday reerku waa danyar iskuma awoodo inuu ciyaalkoo dhan iskuul geeyo lacag ka baxsho iyo inuu beelo biilka uu la daala dhacaya waxbarashada ma awoodo markaan soo ogaanay xogtaas maxaan qaadanaa marka talaaba aan qaaday iyo sidaan u fikirnay maxay tahay waxaan u fikirnay inaan waxbarashada niraanaga farahan naga soo saara annaga la wareegayno ujeedadu maxay tahay ujeedadu waxay tahay inaan iskuul helno helno macallimiin iyo maamul waxbarasho oo tayo leh oo ciyaalkii waxbara isla markaas ciyaalkoo dhan la yiraahdo lacag leeyahay kama rabe imaada iskuul gurigan jooga waxna ma barto meeshaas inay ka baxdo taasaa loola jeedaa arrimaha waxbarashada marka halkaas ay marayaan oo duruufta waxbarasho aad hadda noo sheegteen sidaasaan uga warqabnaa gobolka Banaadir dadka ku qoran waxay kor u dhaafayaan 3,000 oo dhalinyaro ah 3,000 oo dhalinyaro ahna inta si rasmi ah shaqo u kala hada ee shaqo ka qabato gobolka 500 ma dhama waxa loola jeedaa marka qofku inuusan isla hadlin oo guriga joogin ee uu mataqaana aamino inuu meel ka shaqeeyo isla markaas oo wax un beela wixii ilaahay u laakayso oo wax la soo noqdo taas loola jeedaa marka shaqa abuurka marka sidaas ayaa mataqaana loo wadaa meel fiican maraysa dadka nadaafada ka shaqeynaya waxa waa shaqa abuur oo ogtiin dadka caafimaadka ka shaqeynaya waa shaqa abuur xilliga corona sida loo shaqeynaya waad ogeydeen dadka ka shaqeynaya waxbarashada cadda aan la soo wareegayn waa shaqa abuur dadka dabdamiska ka shaqeynaya waa shaqa abuur dadka ambulaansada ka shaqeynaya waa shaqa abuur dadka wadooyinka dhisaya waa shaqa abuur waxa soo dhan waa dadkeenii ajnabi kuma jiro shaqaana loo abuuro waa la howlgeliyay qodobka saddexaad oo ahaa wadooyinka waa la dhisay wadooyin badan waad ogtihiin waxa la dhisay wadada Sodonka ayaa la dhisay aniga xafiiska intaana imaan waxa la dhisay oo meeradii ugu horeeyay gudoomiyaasha ugu horeeyay ay dhisaan way ku maadsan yihiin wadada wadnaha la dhisay kuwa kale oo mataqaana hadda laga sheekeynayo ayadana waan dhisnay intaan joogay kuwa kalena hadda u soo socona waa dhisaynaa laakiin si dhibaatada timid mataqaana dhibaatada waxa waaye horta hawl wadaag marka la yiraahdo labada wada ugu dhibaatada badnaa waa xareed ay cirtoogti maqaldana waxaan bilownay xareeda macna cirtoogta la bilaabay wadada marka waxa lagu dhisaa malaayiin dollar lagu dhisaa wadada laamiga in laga dhiga wax fudud ma aha okay wadadii marka malaayiin dollar lagu dhisay ee ra'iisul wasaare ku xigeenku xariga ka jiray ee aniga aan ka jirnay iyo maamulada degmooyinka howlwadaag iyo hodon kaalaya soo fiirsho warata laga dhigay wadadii warata laga dhigay wax alla wixii suuqi loo soo rarado waa mataqaana dalada la surtay daladu waa bir laamiga la qoday waa la geliyay marka taasi nama dhiiri gelinayso marka midaas nama dhiiri gelinayso waxaan rabnaa marka bulshada wax loo qabanayo inay fahamsan yihiin waxa loo qabanayo Ibrahim Xaaji Yusuf warbaahinta gobolka Banaadir magaalada